erayga yiraahdo xaasid xaasid maxaa la dhahaa muxuu yahay xaasid muxuu waris xaasid oo eray aad u soo noqnoqday markay noqoto bulshadana Soomaaliyeed oo aynu aad u isticmaalo qofkaas waa xaasid qofkaas waa makhruuq qofkaas waa qof aan wax dadka kale u ogoleen weli ma isweydiisay adigu waxa tahay adu maxaasid baa tahay see dareentaa qof kale markaad aragtid inuu wax heer gaaray ama saaxiib ka ahado ama yuusan ahaanin midda labaad su-aasheeda kale waxay tahay xaasid iyo munaafiq ma isku mid baa munaafiq iyo xaasid ma isku mid baa taas waa su-aal taa iyadan jawaabteeda idiin daa inaa ka jawaabtaan markaan anigu ka hadlo xaasid yes xaasid waa jiraa xaasid waxaa kugu noqon karaa ama qofka qof kugu dhow qofka kaa fog qofeydaan weligaa is arkin oon ku aqoon qof aad istaqaanaan high end baa idinka dhaxayso qof walbaa noqon kara xaasid laakiin waa cudur amusan aaminsanan waa xanuun xaasidka dhan oo lagu sheegay waa qof aan tiisii arkayn oo tiisii laga qariyay wixii ilaahay isaga siiyey baa laga qariyay kale waxa haysto u iltaagaya marka waa cudur baan anu aaminsanahay waa xanuun qofka ku dhaca qof walba ma hadii karta waxa ugu yar oo ka maqra xabad rootiya inuu isdhii kara isheelin okay waxa la dhahaa dumarka especially dumarka u badan baa la dhahaa for example tukaan baa la soo jeebiyay qaali dhar qaali kiti jiray oo kale baa la soo jeebiyay bin aadam dadkeenu waxaan jeclahay dhaqaale fiican inaynu ku xisaabtano waxyaabaha munaasabka ah inaynu gadano especially aan waxaan jeclahay waxyaabaha munaasabka inaan gato oo aan ogahay inaan fasahaad iyo aysan ii keenin fadlan noo saar subscribe ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdegaad ku farxada ha ku siiyo ku soo dhawow Xaqsoor TV wararkii ugu dambeeyay ayaan ka dabageynaya wararka degdega ah hadda soo dhacay fanaanka caanka ah Cawaale Aadan iyo Misxiis oo si toos ah biraha isugu dhufsaday oo aaway maadiya warkii horeba war soo dhaaf fanaanka Cawaale Aadan gabadhii uu u waanan jirayba ee waxa weeyaan baraha bulshada barqafsatay meeday waa la isku soo noqon wixii nool adduunyada wararkeena ay falanqaynayno ayay ugu horeeyaan sidoo kale halka waxaad ku aragtaa waxa weeyaan Nasradiin waa sabafara Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Garoobe halka qara xidhiidh wuxuu soo dhaxmaray maanta dadka danjarta ah isma oga dadka danweynta ah iyo dadka danjarta isma oga daaroora nin dhiste iyo nin dudumo ku hoos nool waxa weeye dayr weyn baa u dhaxeeya waa yaab ka wiilkaas muuqaalada uu soo duubay baan arkay halka Sooma dhigi karo hooyooyin basaya oo runtii darxumada haysata aan halka lagu soo baahin karin waxaan ka codsanayaa inaad samafalaha la xiriirdo wuxuu u gargaarayaa hooyooyinka haddii aad wax u dirto waa wiil wadaada oo waxa weeye daacada oo dadkiisa garab galaya waxaad awoodda u dir oo ku darso dad badan weeye oo ilaa 10 qof soo maray maanta ku darso ilaahay way arkaa hooyo kamid ah waxa tiri maan qadeeno maan quraac calooshay wareegtay walaal iskarab taago la hadalo waxa weeyaan wiilka walaalkeena Nasradiin sidoo kale halka waxaad ku aragtaa waxa weeyaan fanaanka caanka ah fanaan ma hadda waxa weeyaan sheekhi Maxamed biike iyo waxa weeyaan Cabdihani Xaashi oo dib soo noqday labadan nin oo fanka hore uga fadhiistay oo ruuxu jiray fanaaninta ugu horeeyay waliba kamid ahaa Cabdihani Xaashi oo ognahay inuu fanka ku baarqoban jiray waa ka lugeeyay Maxamed biike oo ognahay inuu ku xatareen jirayba waa ka lugeeyay yaa ku soo haray hooyo kugo garan mayno guuleystayaan weeye sheekadu markaa dadku sidee bay u arkaan haddaba waxa weeyaan nolol wanaagsan bay abuureen maanta waa adiga arkaya walaalkan Cabdihani oo isagu ku soo wacdinayo ku soo hanuuninaya runtii muuqaalada ay soo duubeen waa muuqaalo badan oo aad arkayso sida wanaaga iyo khayrka ay u faafinayaan
sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa waxa weeye nasteexa indho oo shawaab kale oo degdega soo bixisay. shawaabtani maxay tahay haddaba? nasteexa indho oo ka sheekaynaysa dadka xaasidiinta ah ee dadka ku shawaafeeya baraha bulshada iyagoon warba ka hayn siday wax u dhacayaan. nasteexa indho oo sheegaysa waxa weeyaan dad fara badan oo Soomaaliyeed inay maanta horumarkooda qaarkood ay ka xun yihiin. micnaha dadkaa ka xun maaha waxa weeye dadka ugu wanaagsan dadka Soomaaliyeed ee fanaqeeyaasha ah ee waxa weeyaan dadka waaweyna waa dad aanay iyadu soo bandhigin balse horumarka iyo geesinimada ay gaadhay waxa weeye ka xun maanta oo ay leedahay dadka xaasidiinta ah iska ilaaliya ee daba wareega yaqaana. waa warar yaa badan oo aynan hore u arag. waxaa ku leeyahay bilow ilaa dhammaad ila soco, waxaan kuu soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ayaynu halkana ku falanqaynaynaa. halkani waa Xaqsoor TV. haddaba aynu ku sii soconay waxa weeyaan halkaa waxaad ku aragtaa horta aynu ku soconay waxa weeye fanaaniinteenii hore fanka uga fadhiistay ee Maxamed Biike iyo Cabdihani Xaashi oo markay muuqaalada soo duubeen dadka falanqeeyaasha badidooda ay leeyihiin walaalaheen waan uga mahadinaynaa sida quruxda badan ee waxa weeye ay dadkooda waxa weeyaan ugu soo wacdanayaan oo weliba ay qaarkood shicil yihiin inay hore u sii wadaan. cawaare aadan iyo misxiis cilmi baan ku bariraa caashaqu ka kow yahay warkii horeba war soo dhaaf. cawaare aadan oo si toosa ula wareegay misxiis. dad badan waxa weeyaan horta inantaas goormo ayay ismehersadeen, sidee bay wax u dhaceen oo misxiisay sanad ka hormaynaan awal muuqaaladeena ku arag baraha bulshada oo meeday mahdiyadii heesaha 20 heesood loo soo qaaday. dad badan baa caawa ka murugaysan walaashin mahdiya oo ay si toosa u kala lugeeyeen cawaale aadan mulla qabaa. hadda sheekadu halkay maraysa warar degdeg ah baan kaa dabageenayaa. haddaba maanta waxa weeyaan waxaa si toosa guurkooda u dhacay waxa weeyaan cawaale aadan iyo misxiis fanaanada qaaliga ah. labadan fanaan ayaa hoy wada galay caawa. labadan fanaan ayaa nolosha ku midoobay caawa. labadan fanaan ayaa baraha bulshada qabsaday caawa oo meeday mahdiya gabadhii caruuraha haysay xaguu kaga tegay cawaale aadan. gabadhii qaaliga ahayd ee quruxuleyda ahayd ee uu heesaha u soo qaaday meeday. cawaare wuxuu yidhi misxiisey ku soo dhowow qalbi wanaagsan, cilmi baan ku bari lahaa caashaqu ka kow yahay. haddaba hambaryadaasoo baraha bulshada qabsatay ayaa dad badan ka cadhaysiisay, weliba dumarka Soomaaliyeedba aada uga xanaaqay. waa maxay haddaba su-aal baa dhakada ka saaranaya fanaaniinta Soomaaliyeed markay isfuraan sababta ay waxa weeye gabadhii hore garabka u siiyaan waxa weeyaan dumarka Soomaaliyeed. taas jawaabteeda weli waa midaan lahayn. aynu ku sii soconay waxa weeyaan walaalkeen cawaale aadan oo caawa la guri galay misxiis ayaa dadku waxa weeye dumarka Soomaaliyeed hambaryooyinkooda aanay si daacada uga hambaryeyneen. markaad ku qorto baraha bulshada misxiis iyo cawaale aadan waxaa kuu soo baxaya falanqeeyaasha Soomaaliyeed ee dumarka u badan inay ku dhigan yihiin cawaale aadan oo ay shafow toosa ku wadaan iyadoo la leeyahay mahdiyadii heesaha faraha badan ee 16 heesood gaariya loo qaaday. ma waxa weeye booraan hadamaha qodan bay noqotay haddaad qodana ha dheerayn. cawaale aadan waxay leeyihiin gabadhii dhistay bay ahayd. haddaba halkan waxaan hambalyo uga dareynaa fanaanka caanka ee cawaale aadan iyo misxiis oo guurkoodu ka dhacay waxa weeye dalkaasi Jabuuti caasimadiisa oo caawa aqal galay iyadoo waxa weeye loo dabaaldegi doono maalmaha soo socda arooska qarniga iyo mahdiye oo aan lahayn warkeeda meel shaaniga cirib ku dambeysay. waxaan ku leeyahay wararka yaabka badan bay farqaynaa. halkaana waxaad ku aragtaa inantii nasteexa indhaha ahayd oo waxa weeye baraha dib u soo noqotay. fanaanadii nasteexa indhaha ahayd oo dib u soo noqotay. muuqaalkii ku xigay muuqaal kaloo ku xigay ayaynu tusaale ahaan ugu soo qaadanaan u malaynaya innagoo oo lahayn waxa weeye fanaanadaas waxa weeye fanka toos uga baxday ee waxa weeyaan aan la arag meel shaan iyo cirib dhigtay balse soo noqoy rugcadaagii xoreysan jiray baraha bulshada dadkii waxa weeye ka hadli jiray
ayaa dib u soo noqday nasteexaandho oo dib u soo noqotay waxaan leenahay waa warar yaa badan ku xidhnow halkan si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey waana igu codsi la xidhiidh Nasrudiin wuxuu soo baray maanta 13 hooyooyin oo danyara oo weliba garooba ku nool xaafada danyara oo waxa weeye qiiqba aanu ka bixinba isla garab taago la caawo